السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا سلام دمان أصحابتي قالية أصحابتي قالية سيتيهين في عنتهين من نبض قبتين إلهي إذن كيسة وإذا رجينا خير بدن إيا فرحت ميل والبودة دوكا كجوكتان لسودة دواذا welcome isku soo noqod kale oo wanaagsan waa maamo waana iyo mar kale iyo channelkeeni dumarka Soomaaliyeed welcome idin leeyahay saaxiibada qaaligayo khayr iyo farxad la soo dhawaada dabcan channel walba igu aragtaan isla meeshii leewa sababtoo ah waa isla anigi channelada lee kala duwan iyo wax qabadkooda badi sadka waa isla meeshii lee yaahe maasha Allah soo dhawaada khayr badan iyo farxad la soo dhawaada hab walba igu aragtaan iyo meel walba iga maqashaanba haye welcome aragtida waxaan ka wadaa miis ay ugu maqashaan leeya maqalka ba aragtidii oo kale leewa maana waa anigii soo noqday le saaxiibada dhamaantiin waa salaama khayr iyo farxadan ilaahay inoo wada weydiye dhamaanteen hay channelkan waa channelkii dumarka Soomaaliyeed wuxuu yaalaa YouTube marka dad badan ma ka saayaan luuqyada hoos soo marmarkoo in la gala ee tahay soo dhawaada welcome topican waa topic dhiirigelin waxaan wadaa walaalaha aan sida gaarka ula shaqeeyo ee fadhiya qaybta dhiirigelinta maasha Allah iyo arrimaha coachingka ama cashar bixinta waa salaama dhamaantiin khayr badan iyo farxadan ilaahay inoo wada weydiina dhamaanteen isku soo noqod kale wanaagsan fadlan hadduu video waan kuu soo dhaco meeshaana member ka noqo wixii dhiirigelina sayna ku dhaafin insha Allah xilligaan kula shaqeeyo iyo xilli kale oo kula shaqeynba meel allaala meesha dhiirigelin ku aragto ama aniga aan sheego ama qof kale ha sheege adiguna labada gacmood ku haabo waxa haabatayna wax khayr la Allah kaaga dhigo aamin ya rabbi amurta khayr Allah nooga dhigo amurta khayr Allah kaaga dhigo dhamaanteen Allah nooga dhigo barnaamijka cashar bixinta waa faahfaahin balanti aad dhigatay daba socdo marka dhageysatid hadaad wax ka fahanto oo wax kugu soo dhacaan ilaahay nuurka ku saaro wax khayr leh sii dabagal marka dhiirigelintan waana idin sheego waxaan idin dhahay dhiirigelinta cashar bixinta insha Allah channelka dumarka Soomaaliyeed aan dhigi doonaa maadaama channelada kale aan waxyaabo kale uga hadlo dhiirigelintiina waxa laga yaabaa inay dhunto marka sayna u dhumin meel dad bana idin dhiga adinkuna halka ku nasta ka dhageysta waxa ka faa'iidaan khayr Allah idinkaga dhigo aamin ya rabbi dabcan adeeg kasto soo dhigo dhiirigelin cod ayaa dhanka WhatsApp-ka daba socoto laakiin WhatsApp-ka waxaan ku naqaanaa oo dad badan ay ku dhacday dhiirigelinta codka inay dhunto marka waa anigaba soo koobayo 10 daqiiqo 20 daqiiqo ma gaarsiiyo hadday dhumaysana wax yar leenaga dhumay waa ka sabri karnaa maleena marka khayr Allah idin channelka waxaan idinkugu dhigaa wixii dhiirigelin in hadhowto gabar kale iska socoto YouTube-ka iska dhex maraysa haday aragtana ay nala fariisato ay dhiirigelinta bal iska dugaashato hadii ay qusayso iyada ilaa qof walba wuxuu ugu soo leexanaa ciwaanka wax quseeyo arkaysa laakiin dadkeenan meelaha hoose isla fadhiyo ee barnaamijyada private-ka ku xiran waxa anfacadiya xataa looqa ku soo galayso marka khayr Allah siiyo maanta ama caawa ama maraan dheereen waxa idin soo galiyay dhiirigelin nafaqo ah dhiirigelintaas nafaqo oo qosayso xagga hemoglobinka ama dhiigga marka in la soo dhiig celiyo oo qof walba level fiican blood levelkiisu yahay waa wax fiican marka haddii qof isku diyaarinayo ama gabar isku diyaarinayso awlaad ama insha Allah hormoonka ilaahay baa awlaad bixiyay ee hormoonka dhoodhoojisanayso inay soo jeegareyso xagga fitamiinaadka jirkeeda ama levelkii laga rabay dhiigga jirkeeda inuu u wacan yahay u wanaagsan yahay waa muhiim inta badan dadka lagu dhagana oo la yiraahdo hormoonaadkaaga ma fiicnana waa dadka already dhiig la'aanta hayso soo waxaan aragnay hadii ciladaha qaar laga soo kabto which is simple ka ah sida aad arkayseen nafaqooyinka iscaateynta oo idin soo galiyay qofku haduu yara xayilan yahay then hormoonku waa qaribma haduu dhiig la'aan iyo nafaqa la'aan hayso hormoonku waa qaribma marka inaan haysana dhiig fresh ah ama dhiig nafaqa haysto
oo maaragtay dhiig wanaagsan ah waa muhiim labadaba. marka insha Allah haddaad dhiig badan haysato, dhiig blood sugarkiisa levelkiisa high yahay, de waxba ma taraysa sax, still dhiigaaga macaana ka buuxo. hadduu subag ka buuxana waa sidoo kale. hadduu pressureka oo blood pressureka kaa buuxo oo dhiigaadu kacsan yahayne ama karsan yahayne ma fiicno. marka dhiigii oo qurux badan oo jadwal la iga dhacday, jawigiisa saxan yahay, iyo dhiigii oo nafaqo badan haysto ayaa la rabaa. iyo adigoo caafimaadkaaga dhan fiican yahay. caafimaadkeena Allah noo fiicneeye. marka khayr Allah ha siiyo, khayr Allah na siiyo dhammaan. cunada la cuno waad arkayseen waxaa cuno idin hor yaallo maasha Allah, noocyo kaloo fara badanna waa idiin soo socdaan. marka cuno qurux badan iyo shaaxyo wanaagsan iyo fitamiinaad wanaagsan maasha Allah intii laga gaaro in lagugu deeqayo waad ogtihiin. adunkuna raadsada wixii linka loo taabanayo Amazonka laga gadan karo, iyo insha Allah waxyaabaha kale oo aad adigu suuqaada ka qaadanayso. dabcan marna lagama maarmo in ilaahay la baryo, sidoo kalena lagama kaaftoomayo in dhakhtarkii loo tago oo leebaladii lasoo ogaado. soo dabcan markaa isbaaraysid inaad iska baartaa vitamin levelkii, haddana sidoo kale inaad iska baartaa blood sugar iyo blood pressure iyo cholesterolkii ama dhiig subagii. markaad si fiican isku soo baarbaarto xagga fitamiinka iyo dhiigaga iyo waxa aad iska soo wada baarbaarto, waa ila sheer garayn kartaa hadday maada kaa hooseyso, si markaas cunno dabiiciya iyo fitamiinaad wanaagsan oo dabiiciya loogu soo kabo, oon aniguna luuqa kuu soo geliyo wixii aad u qaadan lahayd. marka khayr Allah idin siiyo. xaggana waa meelaan idin dhigi doono dhiirigelinta. haddaad si fiican iiga weysaana dhib ma jiro. janalkeena kale maamuwaanad iga helaysaan hadduu ilaah yiraahdo, ama janalladeena kale. waxaa faa'iida khayr Allah kaaga dhigo, isla tacaal wanaagsan insha Allahu khayr. caafimaadka wax loo sabro waaye, u sabra insha Allah. waxaa laga yaabaa inuuna hal maalin xoogaa aan la soo gelgelin oo adiguba hadda waxaad tabanaysid ay muddo dheer qaadatay. marka waxyaabaha aan la diilgaraynayno ama aan maaragtay la hagaajinayno oo nolosha ka hagaajinayno ama aan u hagaajinayno nolosha ma wada aha nafaqa darro un. mararka qaar waa pressurkii noloshii oo la dejinayo, mararka qaar waa farxadda xaggeeda oo la saxayo insha Allah, mararka qaar waa ogaashada nafta iyo caafimaadka iyo nafaqaynta guud iyo nafaqaynta qaas oo gaarka ah. marka Allah idiin fududeeyo, dhinac walba iska dhowdhoojinaysid Allah kuu fududeeyo, Allah noo saqiro. dad badanaa fadhiya barnaamijyada, qaar banaanka ka fadhiyoonaba la shaqaynin iyo qaar gudaha fadhiyo oon la shaqeeyo. qof walba wuxuu tabanayo oo khayr Allah siiyo. dabcan channelka waa nilila soo fariisan kara oo adinka keligiin idiima xirno oo ma dhahayay dadka aan sida gaarka ula shaqeeyo bessa fadhiyo, cid kaloo noo soo gelayso ma jirto, oo waa channel YouTube dhex yaalo. laakiin hadalka inuu adiga kugu socdo waa dareemaysaa. marka khayr Allah idin siiyo, khayr Allahna siiyo dhammaan. walaashii noo timaado oo iyadana baxdo oo dhakhtar la xiriirto oo is soo ogaato, haddii wax la sheegana goori goor intay taa wax iska qabato. hadday is ogtahay caafimaadkeeda inuu wacan yahay, dhiigageedu wacan yihiin, maraan dheerayna isa soo baabaartayna waa okay. isnafaqayn marnaba kaaga dari mayso, vitamins and mineralsna marnaba kaaga dari maayaan. wax badan oo jirkeena ka qaldanaan karana waxaa loo adeegsadaa xalkooda wax dabiiciya. mar walba waxaan aragnaa dad runtii isla tacaal u baahan, dhakhtar u tegay, bacrimis loogu baaqay. marka runtan haddii la isku sheego, jirka wax dabiiciya u fiican, wax nafaqo laha u fiican, wax vitamins and mineral wata u fiican. marka insha Allah isku roon muruqataa la yiri, isku roonaada. komankiina fiirina iyo qaybtiina hoose ee cashar bixinta iyo coachinka hadday soo galaan tobigyo isla tacaal u baahan, sida hadda iyo loo fiirinayo hemoglobinka ama dhiigaaga loo fiirinayo, ayaan dhinaca kalena u fiirin doonaa hadduu ilaahay yiraahdo. qofkii ku cusub channelkan oo soo dhawo welcome. saaxiibadeena cashar bixinta fadhiyo khayr badan Allah ay siiyo. adinkuna channelkan runtii subscribe ka saarta, waa soo gelgeli doonaa anuu adeegiini iyo dhiirigelintiini idiin wado insha Allah. mar walbana waxa lagu adeegaa waxa kale way ka duwanaan karaan. marka insha Allah waxaad dhageysatood faa'iidana Allah kuu barakeeyo, annagana maasha Allah amuurta khayr Allah nooga dhigo
waxsan allah noo soo dhiibo. hayehe dhiirigelinta sideedaba kuma dheeraanayo, hadduu waqtigu noo saamaxo oon ku dheeraadana adinkaa meeshan ilii dhigay. hadday idin gaagaaban tahayna allah idiin barakeeyo. marka kheyr allah isii mar koowaad iyo mar labaad waxaan idinkugu baaqayaa isla tacaal wanaagsan. allah idiin kaalmee amuurta oo allah noo kaalmeeyo dhammaanteenba. hayehe kheyr badan iyo farxadaan ilaahay noo wada weydiinaa. fadlan ka taxadira inaad maaragtay arrimahaas ogaataan, dhakhtarna u tagtaan, isa soo baartaan, dhiigagaaga iyo leebaladooda oo dhanna inaad gacanta ku dhigto. meeshii ay ka gaaban tahay ama division aa ka tahay oo low aa ka tahay si kor loogu soo qaado oo boosti lagugu helo goori goor intee tahay. nafaqooyinka idiin soo dhigana saan idiin sheega yeela. haddii dhadhanka uu kaa tanbadiyo cabitaanada ku qasta insha allah, qudaaro badan isku geeya si markaasayta aadan dhadhanka carabka uuna kuu soo tuurin ama lalabo camal ayna kugu soo noqonin, si markaasaa ugu soo dhiig celisid. laakiin haddii aad awooddo intaan idinka codsaday sameeya, soo ogaada malafkiina iyo leebaladiina. waa aniga jadwalka idiin dhiga fartan idinkugu fiiqay, saas ula socdo leebaladiina. halkaas haddaad joogtana wonderful maasha allah waad dhiig haysataa. ka hoose haddaad tahayna fadhi kuuma yaalo. marka dhakhtarkaaga la xiriir. haddaad dhakhtar private u tagaysid, haddaad dhakhtarkaaga caadiga u tagaysidba dhakhtarkaaga la xiriir ee soo ogow dhiigagaaga. fadlan ogow haddii dhiig macaan uu jiro oo insulin levelkaaga haa yahay, way kugu adkaan kartaa inaad si caadi u xaameyso ama aad u caadooto. soo dhiig sugarkaaga soo fiiri insha allah. anigana do let me know oo ii sheeg haddii uu dhiig macaan jiro, si dabiici saan levelkiisa u hagaajino insha allah. haddii cholesterol levelkaada uu kor u kacsan yahay ama dhiig subagaagana ila wadaag insha allah. kheyr allah isii. hadduu blood pressure jiro dhiig kar uu jirana ka alamagana ila wadaag. kheyr allah isiiyo. haddaa dhiigag lagaa qaadayo dhiigga oo beerkana waa lagu dari karaa ama caafimaadka beerkaaga waa lagu dari karaa dhiigaga lagaa qaadayo. dabcan tayroodkaba dhiigageeda waa la qaadaa, waa soo ogaan kartaa tayroodka. laakiin leebalada kalaa kuu daran oo kuusii muhiimsan sida dhiigaaga caadiga ah ama hemoglobinkaaga. markaa dhiigagaaga iyo waxyaabahaadaasoo dhan soo ogaatidna mar aan isballansanna aan sheekaysanna anigii adiga waa ku kaasaa. maadaama adiga jadwalka cashir bixinta aa ku jirtid, markasta ay ballansan kartaa ood arrimahaaga ila sheeri karayn kartaa. dhakhtarka dhiigga hadduu kaa qaadane inta badan waxay qaadataa isbuuc oo lagaaga soo jawaabayo. marka waa ku kaasaa. haddii xataa ay noqoto inaad waaga markuu kuu baryo aad dhakhtar raadsato ballan soo dhigato, waa ii duubi kartaa cod. waxaa dhigi kartaa maama hadalkaagii baan maqlay, dhakhtarkiina waa ballansaday, ballanaa ii taale xilligaas ayay ballantaydu tahay. dabcan dadka privateka la xiriirana adinku ballan dheer idinku qaado mayso, within 24 hours ballanay kuu dhigayaan ama next daygaba imaabay ku leeyihiin. dhiig macaanka inta badan waxaa good idea dhiig blood sugarka marka lagaa qaada adigoo sooman oon waxba cunin, afkaaga waa beri qabo, inaad iska qaadidaa habboon. laakiin dhakhtarkaadana kala tasho, fasting ma u baahanahay amase soona u baahanahay ama anoon waxba cunin ayaad ii baahan tahay ku dheh. dhiig subagana sidoo kale, bal dhakhtarka markaad dhiigaga ka ballansatid maxaa layga baahan yahay dheh. dhakhtarada waa kala jadwal duwan yihiin, weydiisa dhakhtarka maxaa layga baahan yahay dheh. dabcan ogow levelkaaga hadduu hooseeyo ood anemic tahay oo dhiigaaga uu hooseeyo ama caafimaadka dhiigaaga uu yaro qaldan yahay, waxaa dhici karto inuu baaba badan ku yimaado fertilitigaaga. ilmaha ilaahay baa bixiyo, laakiin ogowhay qofkii dhiig leh ayaa maaragta wax u suurtoobaan. hooyadii iyadoo dhiig la-aana oo qaadane diif badan aa ka muuqato waad ogtihiin. yaa allana waa ku dhashaa. ilmo iska daciifa oo nafaqo badan haysanina way dhashaa. marka kheyr allaha siiyo. gabdhahana isdiyaarina kheyr allaha siiyo. intaadan ilmo dhalinina waa in si fiican laysku sii kobciyo oo dhiigaaga uu aad u soo noqdo insha allah. marka maxaa lagaaga baahan yahay intii aadan uur qaadin? inaad dhiigagaaga wacan yahay, ilaahay idankiisa hormoonaadkaaga inay saxan yihiin, cunno wanaagsan sida aan idinkugu soo dhigayo luuqa waad aragteen, iyo kasii fiican oo noo soo socoto inaad cunooyinkaas qaadato.
waxyaabo badan oo la cabo oo jirka qaboojiyo oo hormoonka hagaajiyo caloosha nadiifiyo adiga dhan kusoo qoynaya inaad cabtid insha allah iyo nafaqo fiican oo top ah qaarkiina aad haysatiin qaarkiina maybe inaad hadda isku duduwanaysaan inaad heshaan si markaasayta nourishment badan aa u hesho ama nourishment waxaa layidhaha nafaqeyn badan aa u hesho uurqaadis wanaagsan walacu markaadan nafaqo haysanin waa lagu wareeraa aad aa loogu wareeraa marka intaadan uurka qaadinaa si fiican laysku sii dhoodhoojiyaa dabcan xaajimacowna waa la dhoodhoojiyaa laakiin hadda iyo dan anagayna taagan tahay isdhoodhoojis wanaagsan isnafaqeyn wanaagsan walaalaheena nala fadhiyoon uur isku diyaarinaynin oo caafimaadkooda guud usoo galay meesha inay ku dhoodhoojistaanne dabcan exactly intaana naliigaga baahan yahay inaad adinkuna isu soo ogaataan qofku markuu dhiig la-aan hayso lafaha xanuuno murqaha xanuuno madaxa wareero indhaha madoobaado hurdadaa ka yaraato jirka dhanaa garaacmo tabarta dhanaa u malaysaa in lagaa dhuuqay marka saas aawadeeda waa inaad isu soo kabtid gabadheena isdiyaarinaysana 2 jooraba waa laga rabay gabadheena isdiyaarinayninna waa laga rabay marka qof walboo nool waxa waaye nafuu leeyahay sax marka waa kaasa isla tacaal wanaagsan khayr badan iyo farxadan ilaahay noo wada weydiina meesha wixii noo soo galana daawo allaha noogu daro waxaan isku dayayaa inaan cod faahfaahin idiin soo raaciyo channelkiinaana aan soo galo oo dhiirigelin idiin soo dhigo insha allah haye khayr badan iyo farxadan ilaahay noo wada weydiiyo dhammaanteen qofkii nagu cusub oo channelka iska soo raaciyo waa nala fariisan kartaa khayr allah ku siiyo faahfaahintan waxay ku socotaa cashir bixin ka socoto qaybteen hoose ee dabiib iyo dadaal iyo arrimaheena coachinka haddaad u baahan tahayna nambarada laga helo waa hortaada haddii kalena nala joog wixii talaa halkaa ka qaado tala waa tii ilaahay afkoos dhaktarkaaga u tag isa soo baarbaar si fiicana dhaktarkaaga usoo wareyso haddii cilado ay ka jiraan hormoonkaaga ama dhiigagaaga ama wax un ay soo baxaanne hayehe goor intee taa wax iska qabo wax aad maqashay ood fahantay oo dhiirigelin u qaadatayne allah kuu barakeeyo adoo iska socoto youtube iska dhex maraysaa maybe aragtay deen waa nagu soo leexatay war qolo loo wada iyo howl iska daba orada iyo isoo dhiig celi iyo nafaqadaada ogo waxbaa dhexda uga soo dhacday sax marka waa ku kaasaa adiguba nafaa leedahay isku roon muruqataa layiri isku roonaa kasii daran asna ma ruqayo haye ani maamuwaano waa qofka aqoon ii lahayn meelo badanaa leega helaa allahna badiyo na barakeeyo saaxiibadii aan jeclaayo isku soo noqod kale wanaagsan qaas ahaan saaxiibadii aan gaarka ula shaqeeyo adinkuna khayr allah idin isla tacaalo wanaagsan isnafaqeynta iyo sugaashada iyo isdabiibka allah idin fududeeyo aamin yaa rabbi sida aad jeceshahay oo hamigaagu jecel oo khayr ah allah kuu yeelo duca layskama reebee dhammaanteen allah noo yeelo hayehe cafiya caafimaad saaxiibadii aan jeclaayo isku soo noqod kale wanaagsan khayr allah idin siiyo saaxiibada aan sida qaaska ula shaqeeyo haddaad dhaktar u tagtaan oo isu soo ogaataan oo isu soo baabaartaan wixii jawaabe insha allah qaybta khamiista soo gala adigoo malafkaaga wadatid oo leebeladaada ay cadcad yihiin hadday wax ka dhiman yihiin dhoodhoojiska aan dhexda u xirana insha allah meeshii laga rabay hadday ku yihiin maasha allah oo gurigan kuu leeyahay horey u soco intaasna waa iga aqbaar haddii aad awoodid waaye awood ilaahay bay u sugnaatay inkastoo meelo badbadan adduunka lockdown laga galay laakiin weli dhakhaatiirta waa shaqeeyaan dhiigag waa la iska qaadaa howluhuna way kala socdaan marka lockdownku hadduu ku saameeyeyne dhib ma leh insha allah nafaqadaada sii wado wixii khayraadon hoos kuu soo geliyana baro qaado ilaahay dawaha kuugu daro waa idikaasaa hadday dhaktar kuu suurtoobi karto inaad tagtid oo isu soo baartidne fadlan jadwal dejiso insha allah dhakhtarkaaga u tag dhinaca kalena waa aniga warqad kuu dhigay oo qaybta hemoglobinkaaga afkoos soo ogow laakiin haddaad raacin karto dhiig subaga iyo dhiig karka iyo ama blood pressureka ama kolestaroolka iyo sii raaci waa idinkaasa khayr badan iyo farxadan ilaahay noo wada weydiiyo dhammaan isbiicu dhawey gabdho badanaa soo geliyeen hormoon leebeladooda marka kaasna mar kale aan ka sheekaysan doonaa dad badanaa meeshii laga rabay maasha allah keenay khayr allah idisiiyo dadna waxyaraa ka dhidhiman insha allah waa la gaari doonaa waa soo ogaan kartaa leebelada hormoonaadkaagana mar kalaasa ka sheekaysan doonaa insha allah hadda waa xagga dhiigaaga iyo caafimaadka laga rabo allaha kula garab galo
dhammaanteen anigana waa ku faraxsanahay inaan idiin adeego khayr allah isiiyo tartiibtiina qonyar socod u barta insha allah arrimihiina sidoo kalena walaalo badana waxaan kula taliyay inay telefoon samaystaan maadaama coachinka wax isxiraya uu yahay waxyaabahaanaan kuu soo diraa iyo adeegyadaanaan kuu soo diraa sayna kaaga habaabin ayna kaaga ambanin marka videogan linka idiin gelina insha allah telefoon iska macbile oo high glass ahayn laakiin aqli badan waa smartphone waa aqli badan yahay qarash badanna maaha waxaan ugu talagalnay maadaama aan aqligiisa ku raacayno inaad wax ku shubato gigabyte fiican uu leeyahay qiimihiisana dad badan waa iska awoodi karaan of course magac oo fancy ya oo eesh calaaho wow maaha magacyadan 2020 ee socda maaha laakiin waa un geed xay ah wax qaadkiisana uu yahay wonderful marka waa kaasa ku kaydsada ani wax badanaa soo dirooyaa u jeedin link leh waraaqa leh فيديوهات يريرة لا socdo clipyo oo xagga dhiiga muujina waad aragteen kuwa kalena way soo socdaan marka inaad iska samaysatid mobile kale oo wixii ku soo dhaco mobilkaaga aad ka rarato oo ka kala ku shubato way ku fiican tahay casharkana wax xirma waa ogtiin wax la tiriyo taagtooda gaaban marka hadda maalmihii dhaweeyta anaa idinka yara xanuustaday markaan si fiican u fiicnaadoon hawsha laba u qaban kara insha Allah luuqina idin soo buuxina laakiin adigana isxilqaan oo sii raro marka videogan link oo idin wata linkaasna waa mobile Amazon UK iyo amazon.com oo saa idin sheegay kayd loogu talagalay marka khayr badan iyo farxadan ilaahay noo wada weydiina hadaad baladkaada ka soo gadan kartidna soo gado insha Allah hadaad baladkaada ka soo gadan kartidna mobile fiican oo qiimahaada ku gooyo soo gado mid hore oo iska fiican oo xay guriga hadoo yaalana si waxaad gashataa USD card soo gasho oo memory card soo gasho dhankaas ku shubo wax isbeera hadii ku oolinne insha Allah linkaan isticmaal oo isbeer mobile kaaga meesha ka gado dabadeedna waa ku kaasaa ii baashaal wixii ku soo galo oo nafaqo ah halkaas ku shubo hadhowta tartiib anytime oo diyaar tahay aad wixii meesha soo galay oo dhan goonidooda u gadgadan doontaa ama uga akhrisan doontaa ama aad uga fiirsan doontaa waayo recipe-ga cuntada soo galaayo adeegiya soo galaayo hadda waa idin sheegay dabiibkan waa kab iyo karin mar walba anoo wax wada idin keena insha Allah wixii ku soo galo halka kala deg laakiin ani haday tiraahdo hadda ka hor aad ka hadasho buuga keen kab ka hadashay keen hebel ka hadashay keen sometimes ma keeni karo aadaan busy u ahay marka inaad ila shaqeysaa oo dhinacaaga iska abaabushaa qaas ahaan adoo urursana waxa dabiibkaaga u fiican waa muhiim aada idin jeclahay khayr Allah siiyo dhiirigelintaana saa u dhageysateen waa ku mahadsantiin mar koobaad iyo mar labaad dhamaantiin waa salaama hadaa channelka dumarka Soomaaliyeed ku cusubtiin noo soo dhawaada welcome dhiirigelin wanaagsan waa inoo mar kale aduu Ilaahay ka raali noqdo caafimaad assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh